soo dhawaada. ninkan xaaskiisa wuxuu u keenaa tikidka diyaaradaha lagu raaco wuxuuna u sheegaa inay safar u baxayaan. midaan markii hadalkaas maqashay kal iyo laabay u farxay, laakiin farxadeeda ma sii soconaysa kadib markii uu sheegay in uusan isagu raacin oo ay shaqo u taalo. iyadoo aan qanacsanayn ay soo baxaysaa waxay u imaanaysaa saaxiibadeed oo maqaayadan jooga. kadib waxay bilaabay inay u sheegtay inay baxayso oo ay safar aadayso. gabadhan saaxiibadeeda markay hadalkaas ka maqasho way u hambalyeyneen, laakiin midaan kale oo koofida wadata waxay u muuqataa mid aan ku faraxsanayn saaxiibadeed bixitaankeeda. waxay weydiineen marka adigana sidee u aragtaa. waxay dhehaysaa caadi waaye, laakiin ninkaaga muxuusan ku raacaynin. waxay ku dhehaysaa isagu wuxuu leeyahay kulan aad u weyn, sidaas darteed hadda annaga mana raaci karo. kadib midaan saaxiibadeed waxay ku dhehaysaa waxaan kuu sheegahay dhegayso. aniga walaashay ninkeedii hore ma xasuusataa isaga baawul. isagu walaashay wuxuu u diray safar sida hadda ninkaagu uu sameeyey uu adiga safarka kuugu diray. wuxuu u sheegay inuusan isagu raaci karin oo ay shaqo u taalo, laakiin shaqo maysan u oolin oo wuxuu rabay inuu waqti u helo xaaskiisa cusub. kadib midaan kale intay soo booday waxay dhehaysaa waxaas macquul maahan, saaxiibaday ninkeedana ma qiyaamayo, waxaasna ma dhici karaan. saaxiibadiin hadda faraxsaneedna waa tanaahay murugmuruga u shidanta. ayagii dhan waxay bilaabayaan marka inay alaabtoodii iska cabaan, laakiin midaan waxay cabayso oo dhan ma ku socdaan. waxay ka fikiraysaa sababta uu ninkeeda uga haraayo. subaxdii labaad midaan iyo cunugeeda yar way soo diyaariyeen, waxayna rabaan inay eelboorka aadaan. midkaan alaabtoodii dhan u diyaariyey, laakiin inta aysan bixin ninkeeda waxay ku dhehaysaa ma laga yaabaa inay maskaxdaadu isbedesho oo annaga inan raacdo. laakiin midkaan wuu ku adkaysanaa, wuxuu dhahaa aniga hadda shaqa ii taallo, waxaasna macquul maahan inaan sameeyo. isla markiina waxaa imaanaya ninkii darawalka ahay oo eelboorka u wadi lahay. midaan waxay soo xasuusaneen marka hadalkii ay saaxiibadeed ku dheheedeen markii ay maqaayadda wada joogeen, laakiin ugu dambayn way iska soo baxaysaa iyadoo aan ku qanacsanayn safarkan ay aadayso. midkaan markii ay xaaskiisa baxday isla markii albaabka intuu soo xirto wuxuu wacanaa qofkaasna dibaa ka ogaa doontiin. dhinaca kale diyaaradii ay ninkan xaaskiisa raacday dadka waxay u sheegaysaa inay isdiyaariyaan, iyaduna waxay isku diyaarinaya inay duusho. midaan kaamira ay guriga ku soo xiratay waxay ka arkaysaa markii ay soo baxday inay ninkeedu uu wacday naag kale. shaqaalihii diyaaradda iyaga oo isku diyaarinayo inay albaabada xiraan si ay diyaaraddu u duusho ayaa midaan waxay dhehaysaa istaaga, waxaan rabaa diyaaradda inaan ka dego. isla markiina iyadoo degdegaysay diyaaraddii ka soo degayey. midkiina waa kanaahay maba ka qasna wuxuu wacday xaaskiisa saaxiibadeeda. iyaga oo labadooda iska sheekaysanayo ayay hal mar albaabka ku soo furaysaa iyadoo weliba kaamiradeeda u shidan tahay. midaan waxay taagan tahay guriga waxaa u imaaday waxaan rabay in aan hagaajiyo oo keliya ay wax kale ma jiraan. laakiin midaan iyadoo xanaaqsan waxay ku dhehaysaa waxaad haysataa 3 sakan oo keliya si aad gurigayga uga baxdo. xitaa markii ay sii bixaysay kaamirada maysan ka joojin, waxay dhehaysaa qof walba wuu ogaanaa waxaad samaysay waanu ku soo qarxinaa. midkaan wuxuu taagan yahay isdeji, wax ma jiraan meeshaan, waxaa qoftaas ugu wacay keliya waxaan rabay inaan wada sheekaysano oo keliya. laakiin midkaan xaaskiisu waxay u sheegaysaa inuu isdiyaariyo oo ay maxkamadda aadayaan, wax walbana ay kaamiradeeda ku hayso. iyada oo hadalkeeda sii wadata waxay dhehaysaa hadda waxaan wacaa abuukaataha si aan aniga iyo adiga u kala tagno. muuqaalkaana intaanu ka ekaay ee hadda halkaa soo gaarta leegnoo saar. aygan lacag wadada taalloo soo helay kadib sidii u soo wada si toosa waxa uu keenaa ninkii isaga iska lahay. wuxuu weydiinaa marka meeshii uu lacagta ka soo helay. kadib aygu wuu ordaasi oo midkaan u soo tusa meeshii ay lacagtu taalay. aygii siduu u soo ordaayay wuxuu istaagaa meeshaan oo qashinku yaallo. midkaana wuxuu arkaa inay meesha lacag badan taallo. isagoo lacagtii aruursaayo wuxuu arkaa gabar qashinka ku dhex jirta oo u tilmaamaysa inuu aamuso. ninkan isagoo la yaaban gabadha qashinka ku dhex jirto ayaa waxa u imaanaya midkaan kale oo feeraha weyn. wuxuu weydiinaa marka wuxuu meesha ka qabanayo. midkaan intuu arko gabadhii dhuuminaysa wuxuu bilaabaa inuu soo bixiyo, laakiin eygii intuu ka soo dhex galo kuwan jaanis waxay u helayaan inay baxsadaan. ninkii eyga iska lahay gabadhii intuu gaarigiisa soo saaro si toosa wuxuu u keenaa gurigiisa. kadib albaabkii intuu soo xiro gabadhii u imaanaa. wuxuu weydiinaa marka ninkan feeraha weyn muxuu kuu bursanayay, lacagtuna maxay ahayd. iyaduna ma u jawaabaysa ee waxay tusinaysaa inay dhar camal ugu labisan tahay lacag aad u badan. wuxuu weydiinaa marka lacagta ninka ma ka soo xaday. waxay u sheegaysaa tuugada in la xada inay bannaan tahay, taasna ay dembi ahayn. isla markiina labadooda albaabka lagu soo gargaraaca. midaan wuxuu ku dhahaa dhuumo ninkii feeraha weynaa inuu yaha laga yaabay. markii uu albaabka furayna xariifkii feeraha weynaayaa gudaha soo galay. isagiina waa kanaa hal feer oo lagu dhuftoo la fooraraa. intuu u soo laabto wuxuu ku dhahaa inay joogto waa ogahay ee halkaa ku qarasay, laakiin midkaan wuxuu ku adkaysanaa inaysan gabadhu joogin. midkaan gabadha raadinayo eeyaha lama tuso. markii uu eygii arkay gurigii uu isaga cararaa. midkaana albaabkiisa oo xiranaa. isagoo la xanuunsanayo feerkii mar dhaweyta lagu dhuftay ayuu waxuu weynaa midii iyada darteed feerkaas lagu dhuftay. wuxuu ku dhahaa haggee joogtaa. iyadana waa tanaahay meeshaanay ka soo dhex baxaysaa. midkaana wuxuu la yaaban yahay meeshaan yartaas siday ugu dhuumatay. isagoo yaabane waxay ku dhehaysaa waxaan rabaa inaan seexdo, sidoo kale waxaan rabaa gurigaaga inaan sii joogo maalmo. kadib lacagtii ay haysatay lacag ka mida intay soo bixisay siinaysaa. waxay ku dhehaysaa intaasna waxaad u qaadataa maadaama aad i badbaadisay. isaguna intuu lacagteeda u soo celiyo wuxuu u sheegaa in uusan isagu badbaadin, laakiin taas beddelkeeda uu eygiisu badbaadiyey. haddii aad rabtid gurigan in aad joogtana alaabtan qabso si aad eyga nadaafadiisa uga taxadarto. hadalkaas
markaas in ay diiday isku dayeen laakiin ugu dambayn way ogolaaneen maadaama uu eyga nafteeda badbaadiyey. kadib maalmo badan oo eyga nadaafadiisa ay ka taxadaraysay maalin maalmaha ka mid a waxay u imaanaysaa midkii eyga iska lahaa. wuxuu weydiinaa meeshay hawsha u marayso laakiin waxay u sheegaysaa inuu faraha u geliyo hawl aan loogu talagelin. habeenkii iyagoo miiska cashada wada fadhiyo ayuu wuxuu u sheegaa inuu bannaanka ka soo laabayo uuna alaab yar ka doonanayo. subaxdii markii la gaaray midkii weli muusan soo laaban iyadiina waatanaa miiskii cashaday weli dul fadhisaa oo isagiiya ku sugaysaa. xoogaa kadib waxay arkaysaa in eygii oo keliya oo soo laabtay. waxay weydiinaysaa marka meesha uu isagii jiro laakiin eygu wuu ordaa. eygu qoftaan siduu u soo wada waxuu keenaa midkii oo meeshaan luuqaa yaallo oo kii feeraha weynaa dul taagan yahay. kadib gabadhiyo wuxuu ku dhahaa waan ogaay inaa halkan imaanaysid waxaan kuu qabtay hal saac si aad lacagtaydii igu soo celisid. waxay u sheegaysaa marka in aysan isaga hal saac uga baahnayn oo ay lacagtiisa horay ugu soo qaaday. isagana intuu yaabo wuxuu dhahaa sidaan fudud inaad lacagta ku soo celaysa ma u malaynayn. iyadana waxay ku dhahaysaa lacagta wax ka qiimo badanaan haystaa. kadib labadoodu meeshii isaga soo tegayaan. eygiina waa kanahay lacagtii meeshii taallow ku kaadina maaqaan xaasinimay ka taama malayna. muuqaalkaana intaanuu ku ekaayay hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar. soo dhowaada gabadhan cunug yar oo bombala ay soo qaadatay kadib meeshaan ay la soo fadhiisatay si ay lacag ugu hesho. gabadhan kale oo waddada maraysay ayaa arkayso waxay u malaynaysaa marka inay tahay hooyo dhibaataysan. lacagtaana intay siisay waxay ku dhahay cunugaaga cunno siiso. iyadana markii lacagta la siiyey intay qaadatay alaabteeda oo dhan aruursanay kadib meeshii isaga tegey. laakiin gabadhii lacagta siinaysaa waxay ku dhahaysaa waxaas cunug uma ekee maxaa waaye. iyadana markay ogaatay in la arkay intay cunugii turtay meesha isaga cararey. cunuga ay bini'aadanka ka dhigaysana waa kanaahay sidaanu u ekaay. midii sidii u soo ordaysa booliskaana intay qabtaan waxay ku dhahayaan adiga yaa ku ceyrsanaya maxaa orday gacantan maxaa ku hesaa nutusi. waxay arkayaan marka in ay lacag wadato oo ay lacagta la ordayso. gabadhii kale intay u timaaday waxay dhahaysaa gabadhan dembi ma laha anigaa lacagta siiyey iska daaya. iyagana xoogaa ay ku dheganaayeen ugu dambayn way iska daynayaan meeshiina way isaga tegayaan. midaana gabadhii waxay ku dhahaysaa soo bax aniga ay raacaysaa. sidii ay u soo wadana waxay keenaysaa meel maqaayada oo iyadu leedahay. waxay weydiinay marka meeshaan maxaa waay maxaa ii keentay. iyaduna waxay ugu jawaabaysaa meeshaan anigaa iskale hadda kadibna meeshaan aad ka shaqay doontaa lacag dambana ina xadda lama rabo. iyada oo hadalkii loo waday waxay arkaysaa lacag meesha saaran intay baxday soo qaadanay laakiin markii aragta in loo jeedo way iska dhigeen. midii dukaanka iska lehed midaan waxay ku dhahaysaa howshaada fudeed waaye markii uu qof kuu yimaado oo dalifkiisa aasiisid oo lacagta ku siiyo lacagta sida u soo wadisid toosa meeshaan u gelinay. lacagta markaad meeshaan gelisidna maxadiisid oo meeshiida uga leexanay. haddana inta baxdid orod dharkan iska soo bedel soo nuqubeyso wejigana make up soo marso si ay macaamiishiidu kaaga cabsan. maalmo kadib qoftan shaqadii way la qabsatay waatanaa marka iyadoo shaqadeeda qabsanayso. meeshii ay lacagta ku jirtay soo furaysaa kadib maskaxdeeda waxaa ku soo dhacayo alla yaaxado. lacagtii meesha ku jirtay oo dhan ay soo baxsanaysaa kadib jeebkeeday gashanaysaa bannaankiina u soo baxay si ay wax ugu soo gadato. laakiin midii meesha iska laheeda ka hor imaanaysa waxay weydiinay marka ma bixi kartaa meel miyaa u socotay. iyaduna waxay dhahaysaa qashinka meeshaas yaallo aan rabay inaa bannaanka u soo bixiyo laakiin midaan way fahmaysaa waxay ku dhahaysaa lacagta aad hadda soo bixi oo gacantiida ii soo saar. iyaduna ugu dambayn way isdhiibaysaa markay aragtay in la qabtay lacagtii intay soo bixday ku wareejinay. maalmo kadib qoftii waa la waaniyey oo waxaa lagu dhahay wax dhan ha xadina. iyadana waatanaa waxay bilaabtay inay si fiican u shaqaysato oo lacag badan ay shaqaysay. labadooduna ganacsigoodu si wanaagsan oo ugu socdaa laakiin balaayaa kasoo dhexgeli doonto. maalin ayuu odagan derbijiifka wuxuu u imaanaa gabadhii keligeed oo dukaankii looga tegey. wuxuu ku dhahaa adiga iyo aniga waxaan isla ahayn derbijiif laakiin adigu waxaad bilowday in aad shaqaysato ma ogtahay inay derbiyadii kuu xiiseen. iyaduna midkan waxay u sheegaysaa inay waxaas ay mar hore ahaayeen haddana ay ganacsi bilowday oo ay shaqaysato. wuxuu bilaabaa marka inuu handado isagoo ku dhahayo waa inaad lacag isiisaa haddii kale dukaankan oo dhan waa guba. kadib waxay ku wareejisay lacagtii iyo iyadu sida goonida ay macaamiisha u siiyeen. markii uu baxayana wuxuu ku dhahay isbuuc walba lacagan kaa rabaa waana ku imaana. maalintaas kadib midii dukaanka iska lahayd waxay ku soo laabanay dukaankeedii oo cidlo ah iyo waraaqadan oo meeshii loo geliyey lacagtiina laga qaatay. midiina waatanaa saaxiibkeed hore ay derbijiifka isla ahaayeen ay u imaatay lacagtii ay soo haddana way kala qaybsadeen. iyaga oo meeshii wada taagan ayaa waxaa imaanaya gabadhii dukaanka iska lahayd iyo boolis ay hore u soo wadatay. odaygii derbijiifka ay waa kanaa waa la xiray waxaana lagu soo eedeeyey inuu handaday gabadhaas kadib markii laga soo arkay kaameradii dukaanka ku xirneed. midaana mar labaad ayay gabadhii dukaanka iska lahayd iska cafinay maadaama lagu qasbay inay waxaa samayso. isla maalintaasna labadan shaqadoodii ay dib ugu laabanayaan. muuqaalkuna intaas ku ekaay leeg noo saar.